Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaama dhammaantiin asxaabta. Haddii ay tahay markii ugu horreysay channelka Gambalaalka furo subscribe-na saar si ay kusoo gaaraan muuqaalada cusub. Maanta waxaan ka hadli doonaa taariikhda Quds oo kooban iyo sidii markii ugu horreysay Yuhuuddu ay ku yimaadeen Filistiin. Magaalada Quds waxaa aasaasay markii ugu horreysay nin lagu magacaabi jiray Malki Saadiq ama naanastiisa la dhihi jiray Malki Saadiq 1800 oo sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise. Ninkaasna wuxuu ka mid ahaa Yabuusiyiintii hore. Yabuusiyintuna waxay ka mid ahaayeen Kancaaniyiintuna waa dadkii hore ee degi jiray Filistiin. Nebi Ibraahim calayhi salaam markii Ilaahay uu ka badbaadiyey dabkii uu u shiday Namruud, isaga iyo walaalkii oo ahaa Nebi Luud iyo ahalkiisa waxay isaga soo tageen Ciraaq. Kadibna wuxuu degay Nebi Ibraahim magaalada Khaliil ee Filistiin. Halkaasna waxa uu ugu dhashay Nebi Isxaaq. Nebi Isxaaqna wuxuu dhalay Nebi Yacquub. Nebi Yacquubna naastiisana waxaa la dhihi jiray Israa'iil, waxaana uu dhalay 12 wiil. 12kaas wiil ayay ka soo jeedaan Yahuuddu, waana 12ka qabiil ee Yahuudda. Kadibna waxaa dhacay qisada aad wada taqaanaan ee ah inuu Nebi Yuusuf riyoodo, kadib walaaladii ay cayl ku rideen, kadibna Masar addoon ahaan looga iibsaday. Kadibna Nebi Yacquub iyo ilmihiisii ay soo guureen Masar ay yimaadeen. Markii ay la kulmeen walaaladood Nebi Yuusuf walaalihiis markay la kulmeen, kadibna ay u soo guureen Masar. Xilligaa Yahuuddu waxay ahaayeen ama reer Bani Israa'iil waxay ahaayeen 70 qof oo keliya. Nebi Yuusuf wuu geeriyooday, Fircoonkiina wuu geeriyooday. Muddo kadib waxaa yimid reer Bani Israa'iil Fircoon necab, kadibna geliyey addoonnimo ilaa uu ka dhashay Nebi Muuse calayhi salaam. Kadibna uu ka soo saaray Masar Ilaahay markii uu badda u kala jeexay kadib. Waxay ahayd xilligii Nebi Muuse uu ka soo saaray 1446 sano ka hor dhalashadii Nebi Ciise. Waa muddo 400 oo sano ah markii ay yimaadeen kadib 400 oo sano ku dhowaad. Markii ay ka soo baxeen Masar ay marayaan saxaraha Saynaa ee Masar, Ilaahay wuxuu amray Yuhuudda in ay Quds qabsadaan, inay la dagaalamaan Carab meeshaas haysatay oo Quds ay qabsadaan. Laakiin way diideen. Nebi Muuse waxay ku yiraahdeen adiga Ilaahaaga taga, noo soo qabta magaalada soo furta, anagu intaan idinku sii sugaynaa. Kadibna Ilaahay wuxuu ku salladay tiihuna waxaa waaye inay wareegaan 40 sano. Waxay dhex wareegayeen saxaraha Saynaa u dhaxeeya Filistiin iyo Masar ay 40 sano wareegayeen. Xilligaas oo tiiha jiray ayuu geeriyooday Nebi Muuse. 7 bilood kadibna waxaa geeriyooday Nebi Haaruun. Kadibna waxaa qabsaday ardaygii Nebi Muuse oo la dhihi jiray Yuushac ibnu Nuun. Isaga ayaa madax u noqday. Isagana wuxuu ahaa nebi kale. Isaga ayaana soo waday Yuhuudda markii ay dhammaatay 40kii sano ee Ilaahay ku salladay inay wareegaan saxaraha Saynaa. Kadibna wuxuu soo galay Filistiin. Waxay isdagaaleen Carabtii deganaa Filistiin oo markaa lagu magacaabi jiray Camaaliiq. Waxay qabsadeen Yuhuuddu magaaladii caasimadda u ahayd Carabta oo ay jabsheen oo la dhihi jiray Ariixa. Kadibna Yuhuuddu waxay isku ballaariyeen Filistiin iyo Shaam intooda kale, laakiin weli ma aysan awoodin inay qabsadaan Urshalim oo xilligaa la dhihi jiray Quds oo la dhihi jiray xilligaa Urshalim. 27 sano ama 29 sano kadib geeridii Nebi Muuse waxaa ka daba geeriyooday Yuushac ibnu Nuun. Reer Bani Israa'iil marnaba ma aysan awoodin inay qabsadaan magaaladii Quds ama Urshalim oo xilligaa magaceeda la dhihi jiray, ilaa uu boqor u noqday Daaluut oo Ilaahay u dooray inuu boqor u noqdo. Daaluut ayaa la dagaalay Jaaluutna waxaa dilay Nebiyullaahi Daawud calayhi salaam. Daaluut markuu geeriyooday kadibna Nebi Daawud ayaa qabsaday boqortooyadii. Saas ayayna ku qabsadeen Quds. Xilliga uu dilayo Nebi Daawud Jaaluut waxay ahayd 572 sannadood kadib geeridii Nebi Muuse, yacni 580 sano kadib in ku dhow geeridii Nebi Muuse ay reer Bani Israa'iil qabsadeen Urshalim ama Baytul Maqdis.
kadibna markii uu geeriyooday nebi daawuud waxaa qabsaday wiilkiisii nebi sulaymaan calayhi salaam. nebi sulaymaanna markuu geeriyooday yuhuuddii waxay galeen, boqortooyadii waxay gashay tabardarro. kadibna waxay u kala qaybsameen laba boqortooyo, boqortooyo waqooyi iyo tu koofureed. midda koofureed waxaa la dhihi jiray yahuuda, caasimadeeduna waxay ahayd baytulmaqdis. 722 sano ka hor dhalashadii nebi ciise, boqortooyadii waqooyi waxaa jabshay oo ka adkaaday imbaraadoriyad la dhihi jiray ashooriyiin, kuwaas ayaa tirtiray. saas waxaa ku dhammaatay boqortooyadii waqooyi ee yahuuda. laakiin tii koofureed ee caasimadeedu baytulmaqdis ahayd waa ay qabsan waayeen ashooriyiintu. ashooriyiintu ma aysan sii jirin waqti badan, waxaa iyagana jabshay oo ka adkaaday oo qabsaday dhulkay haysteen baabiliyiinta. baabiliyiinta ayaana qabsaday boqortooyadii koofureed ee yahuuda, gaar ahaan waqtigii nabuukhadnasr kii labaad. nabuukhadnasr ayaa ka adkaaday, quds qabsaday, burburiyey, kadibna yahuuda qafaal ahaan u geeyey ciraaq. waqtigaas ay baabiliyiintu jabiyeen yahuudana waxay ahayd 586 sano ka hor dhalashadii nebi ciise. iyaguna ma aysan sii jirin muddo badan, 539 sano ka hor dhalashadii nebi ciise. iyagana waxaa ka adkaaday boqortooyadii farisiyiinta ama bershiya. taas ayaana qabsatay ciraaq iyo dhammaan dhulkii ay haysatay baabil. koorash ama cyrus boqorkaas la dhihi jiray ayaa qabsaday. isaga ayaana yahuudda mar kale u ogolaaday inay ku laabtaan filistiin, laakiin in ay ku hoos jiraan xukunkiisa, inaysan damac gelin inay boqortooyadoodii dib u dhisaan, inay ku hoos noolaadaan boqortooyada faris, laakiin ay filistiin ku laabtaan. iyaguna muddo dheer ma aysan sii jirin, 330 ka hor dhalashadii nebi ciise. waxaa ka adkaaday iyagana alexander the great ama alexander kii weynaa, waxaana qabsaday filistiin iyo dhulkii ay haysan jireen farisiyiintu. waxaa qabsaday imbaraadoriyadii griiga oo uu hogaamin jiray alexander the great. alexander the great markuu dhintay kadibna imbaraadoriyadii uu ka tegay way kala furfurantay. filistiinna waxaa ka dhashay dowlado yaryar oo madax bannaan. 63 sano ka hor dhalashadii nebi ciise waxaana qabsaday xilligaa filistiin nin la dhihi jiray bombi oo ka tirsanaa roomaanka, yacni hogaamiye la dhihi jiray bombi oo roomaanka matalayay. filistiinna waxay ku dhacday gacantii roomaanka. waxay sameeyeen 135 miilaadiga markay ahayd dhalashadii nebi ciise. kadib 135 sano waxay sameeyeen yahuuddu inay isku dayaan inay kacdoon ku sameeyaan roomaanka. sidaas darteed roomaanku wuxuu ka eriyey filistiin yahuudda ayaga dhanba, sidoodaba filistiin oo dhan yahuudda uu ka eriyey. waxaana loo ogolaaday xilligaa filistiin inay degaan dadka kirishtanka ah oo keliya. roomaankuna xilligaa iyagu ma aysan qaadan diinta kiristiyaanka, waxay ahaayeen sanamyo caabud. ma aysan kusoo laaban yahuuddu filistiin ilaa muslimiintu ay qabsadeen 15 hijriga xilligii cumar ibn khadaab radiallahu canh. kadib yahuudda waxaa loo ogolaaday xilligii cumar, kadib markii ay kusoo laabteen in ay degaan muslimkaa xukuma, laakiin iyagu way deganaayeen ilaa laga soo gaaray 1917 xilligaas oo ay qabsadeen ingiriisku kana adkaadeen imbaraadoriyadii cusmaaniyiinta. 1948 yahuudda waxaa loogu dhawaaqay ama loo dhisay dowladda hadda jirta ee Israa'iil la yiraahdo ee haysta dhulka Falastiin.